ma tahay caruusad mase tahay qof mar dhow u mulay oo jirkiisa soo madoobaaday oo daalkii iyo xaamilnimadii ee ka muuqato maanta waxa idin wadaagaya alaab dabiici ah taasoo jirkaada aad ku quruxsan karto ee xaamilnimadii aad soo martay oo jirkaada qurux kaaga dhigayso mid dabiici ah dahabi ah dhalaalo haddii aad tahay qof mar dhow inuu caruus galane insha Allah ayadana waa la isku kaan weydiin doonaa oo waa lagu dhihi doonaa maxaa marsatay iyo kareem noocee marsatay kaasoo jirkaada ka dhigay mid dabiici ah midkaasoo aniga mar walba isticmaalo kaasoo isticmaalaysid intaadan qubaysanin ka hor ayaad isku iskaraab gareynaysaa kadibna waa ka qubaysanaysaa kadibna jirkaada wuxuu ku noqonayaa mid dahabi ah oo qurux badan midab walbo leedahay haddii aad caddahay waa kusii qurux badnaysiina haddii aad brown tahay haddii aad madowdahay intaba waa ka heli doontaan insha Allah fadlan haddii ta markuu ugu horeysay aad soo booqatid subscribe channelka karin iyo qurxin bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada channelka karin iyo qurxin maanta waxay la wadaagaysaa alaab dabiici ah taasoo gabdhaha aruuska ah umulaha iyo qof walba rab inuu korkiisa quruxsado anfaceyso taasoo aniga mar walba isticmaalo halkaas waxaan ku haystaa waa boorash oo mishaarida aan ka suubsano halkan waxaan ku haystaa 2 macalgo oo caano boora ah waa caanaha budada ayaan haystaa halkaasna waxaan ku haystaa 2 macalgo oo sokor ah waxa kale intaan haystaa Nescafe oo bac yar ku jira kaasoo u dhigmo 1 macalgo alaabta intaan oo kaliya ah wixii aan rabno inaan isku karsano laba shay ayaa gadaal uga dhiman waxa uga dhiman oo dib markaan dabka tagno inaan dab ku karno ayaan rabnaa ayaa arki doontaan marka hore horta boorashka ayaan waxa rabnaa inaan soo jijibino oo aan budo ka soo dhigo insha Allah boorashka ayaan soo shiiday marka aan soo shiiday sidaas oo kale ayuu igu soo baxay bur budo ah ayuu ku soo baxay boorashka hadii aad ka suubsanaysid waxa la rabaa inuu daqiiq oo ku soo noqdo kadib markii aan boorashka soo shiitay kadibna waxaan aadeynaa dhankaas iyo dabka insha Allah nala socdo biidnillah alkariim haddana digsi ayaan dabka soo saaray dabka uu u yara gaaban yahay digsiga markii aan dabka soo saaray kadibna waxaan ku shubayaa boorashkii oo aan soo shiiday boorashka aan soo shiiday ayaan ku shubayaa marka waan saloolayaa ama waan dubayaa hadba sida u taqaanin waxaan rabaa inuu xoogaa brown oo yara noqdo oo yacni cafe oo light amal uu noqdo dabka waa u gaabinayaa marba dhinac ayaan u gidinayaa marka waxa way alaabtan hadii amarstid waxa noqonaysa subhanallah super qof laga yaabo quruxdiisa isbuuci mar 2 mar markii aad qubaysanay sidoo kale inta hada hor ugu dhaqato maasha Allah hadana waa kaasa yaani boorashkeeni brown ayuu inoo soo noqday brown ayaan ka soo dhignay kadibna alaabaheeni kale ayaan kor uga darsanaynaa marka hore waxaan ku bilaabayaa caano boorihii kadibna caano boorihi ayaan sidoo kale ku qasayaa markii aan labadii macalgo caano booraha ahaa ayaan ku daray markii aan ku daray sidoo kale asna ku qasayaa 1 daqiiqo kaleento markii aan ku qaso aan isdhex geliyo kadib hadana waxaan ku darayaa maxaa ahaantood kafeegi ayaan ku darayaa kafeega qiyaasta waa 1 macalgo oo kaleento waa intii 1 mar la isticmaalo kadibna kafeegi ayaan sidaas oo kaleento asigana isugu dhaxgelinaa markaas dhaxgeliyo kadib hadana waxaan ku darayaa 2 macalgo ee sokorta ahaa 2 macalgo ee sokorta ayaan ku daray sokorta mid shiidan mid aan shiidnaynin waa u isticmaali kartaa sababtoo ah biyo ayaan rabnaa inaan gadaal uga darno way dhalaalaysaa marka sokorti ayaan ku daray oo 2 macalga sidoo kale waan isku qasayaa markii aan isku qaso kadibna waxaan ku darsanayaa waxaan ku darayaa 1 koob oo biyo ah halkan koob oo biyo hadda ayaan ku darayaa markii aan ku qaso kadib oo waxa ii dhiman hadda aan gadaal uga darsan doonaa 2 shay kaasoo ah saliid iyo warangada waa mid xalwada lagu kariyo kadibna waxaan ku darsanayaa half biyaha aan anigu isticmaal marka wuxuu noqonayaa 1 koob iyo half oo koobka shaaha lagu cabo ah kadib markii aan isku soo qasay marka waxaan ku darsanayaa qaadada haafkeed oo waranga ah ama nasha sida u taqaanid waa mid xalwada lagu kariyo marka mid xalwada lagu kariyo ayaan ku daray kadib waan isku qasayaa wixii ka saacideynaysa inuu isku ka qabsado ee ku noqoto alaab cream oo kaleento kadibna waxaan ku darayaa 2 macalgo oo ah saliida gabaldaya ama sunflower sida u taqaanid waa saliida gabaldaya ayaan ku daray kadibna waan ku qasay markii aan ku qas kadibna waxaan ku darayaa koobka haafkiisa oo biyo ah awal hore ayaan waxa ugu soo darsaday 1 koob hadana dib ayaan waxa ugu celinayaa koob haafkiisa sababtoo hadda uu adag yahay
koobka haafkiis oo biyaha ayaan kusoo daray sidan ayuu kusoo baxay waxa la rabaa inuu sidan xoogaa yar jilic ku ahaado asigoo yara adag markii aad ka dhaaftid oo aad ka dajisid uu qaboob wuxuu noqonayaa wax adag oo hadhow korkaada dhibaayo oo aadan marsan karin hadda markii aan sidan ku dhaafo kale xitaa dabka aan ka damiyo uu qaboobo uu ka sii yara adkaanaya intaan laakiin inaan sidan ku dhaafatid ayaa wanaagsan hadda dabka ayaan ka daminaynaa insha Allah markii aan dabka daminana waa arki doontaan markuu inuu soo qaboobo haddana waa kana qabow ayuu soo noqday waa ka sidaas ayuu inoogu soo baxay kor labeen ayaa ka fuushay quruux brown yani sidoo u yaala ma malaysan kartid aan ku dhahay marka korka maristid qofkii marsada oo kaliya ayaa ka sheekayn kara wuxuu noqonayaa wax quruux badan ma sha Allah oo dabiici ah haddana markuu qaboobay sidaas ayuu wax yar u yara adkaaday laakiin hadduu adeeg ka noqdo wuxuu noqonayaa wax aagoynay sidoo kale ayuu ka noqonayaa cajiin muufo marka looma baahno waxa la rabaa wax yar oo korkaada uu ku raaxaysanayo oo naciim ah inuu ku noqdo kadibna waxa u baahan tahay waayo weelkii aad ku shuban lahayd weelkii aad ku shuban lahayd ayaa soo qaadanaysaa kadibna waa ku shubanaysaa maalinba inta rabtid ayaa ka marsanaysaa insha Allah markii aan weelka ku shubano waa arki doontaan haddana waxaan ku tijaabinayaa gacanteyda sidaas ayuu u marsamayaa waa wax jileec oo naciim ah ma sha Allah marka qofkii tijaabiyo baa ka sheekayn kara ama qofkii yaqaan hadii aad rabtid inaad noqotid qof dabiici ah oo dahabi ah oo qurux badan oo leesku ka weydiyo lagu dhaho maxaa marsataa maxaa isticmaal alaabtan yani kaama iibinayo kaliya waxa waaye adinka ayaa lidinka ka faa'iideynaya ka faa'iideysta insha Allah iska dhaaf waxyaalaha kiimikada ah umana baahnid qasqas iska dhaafa waxyaalaha qasqaska isku qasmidan ayaa ku anfaceyso jiro kuma keenayso qarash badan kaama rabto qof laba kalar kaama dhigayso haddana markaan iska soo dhaqa sidaas ayuu ku soo baxdo oo quruxda badan 10 daqiiqo la isku ismarmarinaysaa marka ismarmaris kadibna waa ka qubaysanaysaa ama waa iska dhaqaysaa sidii aad rabtid marka kadibna waxa idin leeyahay insha Allah hadii ay tamarku ugu horeeyso aad soo booqato channelka Karin ee qurxin subscribe insha Allah ku bedelo waxyaalaha qasqaska ah ku dhaq lugahaada ku dhaq qoortaada ku dhaq gacmahaada ku dhaq jirkaada oo dhan si aad u noqotid qof dabiici ah noqo qof dabiici ah noqonin qof laba kalar leh مالك وحنوصده إيمانك وعافمات قبو إيمانك وحناقسينها إيمانك وفرحسينها إمركو باهيها إمركو دركسينها هيبو نقو قف هل مذب له وهل مذب له سوها كرها نقانين قف دور وجله ومالك وحنوصده وجله مالك وعافمات قبو وجله مالك ومحوء هنتود ودركسينها مالك وباهيها وجله ما وناكسنا تاس إن شاء الله مركو واحد له كود دالة وحيالها دبيعي قصيدة ونقطان قف دبيعية إن شاء الله هادنا وحو كالتي كسي في عنتها ألابتان إيني كوركا دانك ديجيسا نعيم أديك دانوا اسكو بيجيسا جلاع قروح دهبيجا ما شاء الله مركو واحد الله إن شاء الله إني كتاقا هدي تمركو هريسا جانلك كارين قرحين أتصاب بوقت السبسكرايب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله